dagaalka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya cirka ayuu isku sii shareerayaa waxaana hadda la soo warinayaa in dagaalkan muhiimadiisa koowaad markan loo dhiibi doono taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaye Yuusuf Raage waxa ila hoose ay xaqiijiyeen in saacadaha soo aadan deegaanka Ras Kamboni ay ku sugan yihiin militariga Soomaaliya in uu tagi doono General Odawaye Yuusuf Raage isla markaana uu dejin doono mid kamid ah taatikada dagaal ee Axmedoobe looga saarayo magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulka Jubbaland amarkan ah in amarkan ah in uu taliyo Odawaye gaaro deegaanka Ras Kamboni waxa bixiyay ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Aar oo ay isku dhari siyaasadda ka yihiin Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaana rumaysan yahay in tani ay noqon doonto mid kamid ah awoodihii Axmedoobe tii lagu weeqi lahaa waxa la soo warinayaa in General Odawaye Yuusuf Raage uu gaari doono magaalada Ras Kamboni iyadoo oo ciidamo kale oo hor leh halkaasi maanta la geeyay sidoo kalena ay soo dhiibeen kuwa ka tirsanaa maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya khilaafkooda hadda wuxuu marayaa meelihii ugu adkeyd madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa la sheegay in uu diyaarsaday ciidamo aad u badan isla markaana magaalada cirif ay gaafureegayaan xilli fariisimo ay ka sameysteen gudaha iyo dibadda magaalada intuba madax oo ka mid yahay Ilyas Gaboose oo isagu hore u sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa xanibaad ku dhex wajahaya magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa gurigiisa waxa hareereeyay ciidanka amar qaatay Axmedoobe waxa la sheegay in safarka Odawaye uu ku wehelin doono taliyaha Nisa Sambalolshe masacada warkaasi hase ahaatee wararka suuqa ku jira saacadii ugu dambeeyay ee dhici kara ama la isleeyahay suuragal weeyaan waa in General Odawaye Yuusuf Raage uu ka degi doono deegaanka Ras Kamboni oo aan sidaas uga fogeen magaalada Badhaadhe ama degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose khilaafka wuxuu marayaa meelihii ugu adkaa waana suuragal saacad walba in dagaal u dhexmaro ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland hadda aaga dagaal ee ugu dhow ee labada dhinac isku horfadhiyaan waa deegaan Istanbul lagu magacaabo oo dhowr iyo 30 kilomitir u jira magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland waxaana rumaysan yahay in deegaankaas uu ka mid noqon karo deegaanada ciidamada dowladdu ay doonayaan inay ka galaan magaalada Kismaayo sidoo kale waxa jirta in dhinaca badda la qorsheeyay ciidamo aad u badan inay doomo kaga galaan hase ahaatee xal ma u tahay in dowladda Soomaaliya xilligan ay dagaal ku wajahdo Axmedoobe oo isagu nidaam doorasho qabtay inkastoo la rumaysan inuu isagu isku caanashubay oo uu markaasi is doortay 75 mudane ayaa sida la sheegay doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe taa oo ka dhigan in sharciyad uu ku joogo madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa muddo kordhin siiyay madaxda maamul goboleedyada Axmedoobe ayaa isagu iska diiday muddo kordhintaas oo ku sheegay in aysan markaasi sharci ahayn wax walba oo ka soo kordhay khilaafka Jubbaland dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasadda iyo wararka caalamka ee kala halkan iyo kugu soo gudbin doona daawadayaal isha ku hay sidoo kale rukumo baraheena bulshada aad iyo aad u mahadsantahay